2024 yaani ku dhamaanin adigoon buugan akhrin run ahaantii waa buug aad u faa'iido badan leh in badan waqtigaaga ku ilaalinaya sidoo kalena kugu hagaya inaad wax badan ka mid dhaliso sidoo kalena aad guulo badan gaadho sanadkan gudihiisa bal u fiirso sanadkii shalay bilaabmay maanta intuu marayo almost inuu kala bar gaaro waxa ka dhiman wax ka yar 2 bilood ayaa ka dhiman kala bar sanadkii dhamaa meelaha waxaad dareemaysaa waqtiga xawaaraha leh uu ku soconayo sidoo kalena waqtigu soo cararayo marka walaalkay waxaan kugula talin lahaa inaad ka faa'iideystay waqtiga yar ee sanadkaas ka haray waad ka mid noqotid asxaabta ka faa'iideysta buugan magaciisa waxa loo yaqaanaa The 5am Club waa mid ka mid ah buugaagtii runtii aan aadka uga helay akhriskooda in badan aan ku raaxaysanay oo baashi sidoo kale adigana waa rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontid oo wax badan ka heli doontid haddaba waxaan kula wadaagayaa 5 mawduuc oo run ahaantii faa'iido badan leh oo buugku ka hadlayo haddaba saaxiibayaal ka hor intaan u gudagelin mawduuceena bariyo buug waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay buugaygan inaad like iyo follow tiri sidoo kalena dhanka YouTube ga la socodina fadlan waxaan ku leeyahay subscribe tahay laawin kambaleel kana furo muuqaalka waxaad la wadaagtaa kumanaan asxaab ah buugga waxaa qoray nin magaciisa loo yaqaan Robert Sharma sidoo kale buuggan wuxuu ka kooban yahay 336 book ama page run ahaantii buuggan wuxuu ka hadlayaa inuu qofku awood u yeesho inuu xilli hore tooso oo 5 subaxnimo aad kacdid hadafyadaadii qorshayaashaada ku yaalay aad ku kacdid si aad u fuliso runtii marka buuggan aad buu faa'iido badan yahay markii dhalinyarnahayna aad ayaan u jecelnahay wardadeena ku habsaano laakiin haddii bal dib aad u eegtid caqabad kasto noloshaada ku qabsata ama inay arimahaaga iyo qorshayaashaada inay ku qabsoomi waayaan waxa saldhig u noqon doonta inaad subaxii wardada ku habsaatid runtii waxa kamid ah dadka wardada aadka uga habsaama ama aadka wardada jecel laakiin se buugani waxa rajeenaya inuu nolosheeda wax badan ka bedeli doono faa'iido badan aan ka heli doono runtii buuggan mawduuca koobaad ee runtii faa'iidada leh oo ka hadlay waxa weeyaan awood ay leedahay inaad xilli hore toostid inaad caadaysatid bal inaad salaada hore aad kacdid waqtiga aad ku horeeya 5 subaxnimo dadka guuleystay hadii jeer waa kuwa soo toosa salaada hore sida buugga tilmaamayo gaaladu ma yaqaanaan iyagu salaada subax in la tukado waqtigaas way diinteenu inay fartay inay salaada subax tukano laakiin se iyagu way tijaabiyeen oo qaab waxa weeyaan experiment ay ku heleen in haddii qofku subaxii tooso wax badan u qabsoomayo bal ka war adigoo diinta islaamkuba ay ku fartay inaad salaada hore toostid haddana inaad kacdid salaad subax markaa soo kacdid waxba wardada ku noqonin sidoo kale buuggu wuxuu tilmaamayaa inay muhiim tahay inaad abuuratid morning routine joogto ah adigu ma maamuli kartid qaab xaaladuhu isku bedelayaan jawigu soo noqonayo maalinba maalinta ka dambaysa inay isku mid noqdaan adigu ma maamuli kartid waxna kuma dari kartid waxna kuma soo dari kartid laakiin waxaad maamuli kartaa waa routinkaaga dailiga ah macnaha routinkaaga dailiga ah in subaxii markaad toostid salaad subax tukatid aad quraan akhris samaysid kadib aad qorshayaashaada hadafyadaada eegtid kadib wixii qorshe ku yaalay maalinka aad isku daydid inaad fulisid waa laga yaabaa inay kala duwanaadaan maalmaha kala duwan qorshayaasha ku yaala balse laakiin routinkaaga morningka ah inaad si wacan u saxdid waad ka dhigtid mid joogtaa waa mid muhiim ah sida buuggu tilmaamayo qofku ka horumar badan yahay ama uu ka guulo badan yahay waa qofku ka morningta uu routine fiican yahay macnaha isku meel ma gaarayaan dadka qofkaas subaxii intuu soo tooso salaad subax tukanaya quraan akhristanaya qorshayaashii hadafyadii u yaalay fulinaya sidoo kalena qof waxa weeyaan iska soo toosaya 10 subaxnimo labada qofi adduunyada meel kama wada geli karaan qof kastaana adduunyada wuxuu qaadanaya abaalkeeda inta uu dadaalo in uu tamariyo buu helaya qofna ma helayo wax dheeraad ah waxaanu kasban qof walba wuxuu helayaa wuxuu waxa weeyaan shaqaysto marka morning routinkaaga inaad ka dhigtid mid joogto ah waa mid muhiim ah oo runtii buuggan uu kamid yahay qodobada uu ka hadlayo oo sida gaarka waliba ugu dheeraanayo dhalinyaro badan baa laga yaabaa anigu lafteedaba aan kamid ahay routinkaygu ma fadhiyo waa iska garanaa markay Soomaalinahay maalinba xaalad gaar ah nagu imanaysa kadib xaaladaas ay nolosheenu isku bedelaysaa buuggu wuxuu tilmaamayaa inay jirto waqti loo yaqaano victory hour ama saacadii guusha oo qof kastaaba uu haysto saacada guusha waa saacada ugu horeysa ee qofka bini'aadamka yahay markuu indhihiisa kala qaado ee uu tooso qofka bini'aadamka markuu soo tooso subaxii dadku way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabtaan dadka qaar waxay sameeyaan markii soo toosaan waxay furaan mobilkooda oo TikTok ay eegaan ama waxay eegaan baraha bulshada taasoo marka qaarkood keeni karta inay ka helaan war naxdin leh ama war aan farxad gelin taasi markaa waxay saameyn ku yeelan kartaa maalinkooda dhan inay murugeysanaadaan ama ay waxa weeyaan maalinkooda dhan qofkaas wax ka khaldanaado laakiinse buuggu wuxuu tilmaamayaa inaad si gaar ah aad ugu haysid isha saacadaas guusha ama victory hourkaas markaa maxaad uga faa'iideysanaysaa waxaad uga faa'iideysanaysaa si buuggu tilmaamayo adigoo isticmaalaya formulada loo yaqaano 20/20/20 waa maxay 20/20/20 waxa weeyaan in aad saacadaas aad u kala qaybsid 3 qaybood oo 20 ah 20 ugu horeeya inaad uga faa'iideystid exercise balse inagu way ka duwanahay haddii nahay dad islaam ah 20 minute ugu horeeya inuu uga faa'iideysano cibaado iyo in Rabbi subhanahu wa ta'ala aynu hor istaagno oo ay weydiisano khayr iyo waxa weeyaan janno iyo marka salaadeena aynu dhameysano in quraan akhrisano ugu yaraan 20 minute ee saacadeena ugu horeeya markii toosan salaad hore soo kale qofku 20 minute ee dhexe uu reflection ku sameeyo qorshaha uu yaala waa muhiim qofka bini'aadamka inuu eego maalinka qorshayaasha uu yaala cid balama halan lahaa sidoo wax xalin karo sidoo hawlaha kala horeysiin karo waa muhiim reflection waa mid muhiim oo ah noloshaada ha yaraysanin
hayso oranayn maxaad keegaysaa hawsha iska gal markay Soomaaliland runtii taa ma naqaano laakiinse saacada guusha buugu tilmaamayo 20 minute ka mid wuxuu ku leeyahay waxa reflection ku samaysaa qorshayaashaada ku yaala dhiigaas maalinka wixii aad sameyn lahayd inaad reflection ku samaysid waad weydiisid talow sidee ayaan u fulin karaa qorshayaashii hadafyada yaala maalinkigaas ruuxaantii taas waxay qayb ka noqon kartaa inay maskaxdaadu si wacan u soo warin karto hadafyada ku yaala iyo sidaad u fulin kartid meeshaad u mari kartid qaabka aad uga meel dhalin kartid 20 minute ugu dambeeya qofkana inuu geliyo inuu qorsheeyo next move-kiisa maalinkaas waxa uu rabo inuu qabto sidoo kalena haylaawin inaad samaysid note oo aad qoratid waxaas aad u baahan tahay af Soomaali iyo maskaxdan ku haysanaya taas isku wadayso laakiin inaad buug iyo qalin soo qaadatid aad plan garaysid next move-kaaga buugu sidoo kale wuxuu si gaar ah uga hadlayaa qofka bini aadamka ah marka uu taas sameeyo inay muhiim tahay inuu sawiran karo hadafyadiisa maalinkaas uu qabanayo kaliya inaadan iska diiwaan gelin oo hore waxaan sameynay laakiin maskaxda inta ku yeegtid adigoo gaaray maalinkaagaas balita 5 minute aad indhahaas ku qabatid dib u eeg bal waxaas sida u qaban kartaa waxaana sidoo kale sawirataa adoo gaaray dhammaan hadafyadaas oo dhan talo sidee ayuu u mid dhali kartaa sidee ayuu wax noqon karaa buugu sidoo kale wuxuu si gaar ah u xusayaa in qofku waxaan joogteyntu waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini aadamka waxaan rajaynayaa buugan inaad soo qaadatid sidoo kalena qorshaysid waqti aad akhrisan kartid ruuxaantii ha ka mid noqdo buugani salada bugaagtaada ee 2024 yaanu ku dhaafin waayo wuxuu suuragal ka dhigi doonaa inaad waxyaabo badan achievements badan gaadhid sanadkaaga 2024 waa kugula talinayaa sidoo kale